Assalaamu calaykum. Halkani waa Somali Inside Media. Wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn. Madaxweyne Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay ama uu bixiyay amar lagu beegsanayo doomaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran, kuwaas oo uu sheegay in dhawaan lagu arkay iyagoo afduubanaya maraakiib ku sugan marinka Hormuz. Xaalad ugu sii dareysa dagaalka bariga dhexe ayuu qaaday madaxweyne Donald Trump baa leeyahay. xilli Iran ay heshay lacagihii ugu horeeyay oo ay bixiyaan maraakiibta ganacsi ee ka gudbaya marin biyoodka Hormuz. markan dagaalkii ka socday magaalooyinka waaweyn ee bariga dhexe sida Tel Aviv, Tehran iyo magaalooyin ay ku jiraan Imaaraadka Carabta caasimadiisa Abu Dhabi iyo sidoo kale Doha oo Gadara waxay isku bedeshay Hormuz in la iskugu tago. waana halka ugu weyn ee adduunweynaha oo dhan isha uu ku hayo. waxaan eegaynaa laba farsamo yaqaan oo ka tirsanaa ciidanka cirka Israa'iil oo lagu soo oogay dacwad aan inaba caadi ahayn iyo hanjabaada Donald Trump iyo lacagaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran ay ka heleen marinka Hormuz. saddexdaas qodob ayaan jeexjeexaynaa oo aan soo koobaya. saaxiib soo dhaw haddii aad channel ku cusub tahay waa bar dhawaan gala ama dagal aan u furnay in aan uga hadalno wararka ugu waaweyn caalamka iyo Soomaalida. nagu soo biir oo subscribe soo dheh saaxiibadan u sii share garay waa maasantahay. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa ku dhawaaqay ama bixiyaba amar lagu beegsanayo doomaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran, kuwaas oo uu sheegay in dhawaan lagu arkay iyaga oo afduubanaya markab si nabada ku marayay marinka Hormuz, taas oo caqabad ku ah wada xaajoodada sida uu hadalka u dhigay. waxa kale uu sheegay in maraakiibta Mareykanka miinooyinka ka saara badda ay hadda ka shaqeynayaan sidii Hormuz loogu saari lahaa miinooyin ay Iran gelisay. adduunweynaha waa uu tagay, waxaana la isla marayaa in badda gunteeda miinooyin la isugu aaso. Soomaaliduna iyaga ayaa markaasi weli qabiil isku dilayo qarnigan casriga ee 11aad. madaxweyne Trump hanjabaadaas culus ayuu diray, laakiin Iran waxay helaysaa lacagihii ugu horeeyay oo ay markaasi bixiyaan maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaya marin biyoodka Hormuz kadib markii ay horay khidmad lacag bixin ah ugu soo rogtay markab kasta oo doonaya si amaana inuu ugu gudbo Hormuz. lacagtan ayaa gaaraysa $2 milyan halkii markab oo markaasi inta badan lagu bixinayo nidaamka lacagta ee digitalka ah ee cryptocurrency-ga loo yaqaano ama lacagta Shiinaha ee yuan la yiraahdo. waa ay tagtay Iran, waxaana maalin kasta maraakiibta halkaas adeegsanaya markab walba ay ka qaadaysaa lacag $2 milyan qaab digital ah looga qaaday. lacagta China ama crypto ayaa lagu qaaday labada midood. ma jirto lacag Mareykan ama si kala ah oo la qaadayo. xaalka uu si adkaanaya adduunweynaha oo dhan wadnaha ayuu farta ku haya. ugu dambeynna laba farsamo yaqaan oo ka tirsan ciidanka cirka Israa'iil ayaa markaasi lagu soo oogay dacwad in ay markaasi basaasayeen Iran, kuwaas oo la sheegay inay la wadaageen xog dhameystiran oo diyaaradaha F-15 la yiraahdo oo ay ku jirto sida diyaaraddu u shaqeyso iyo matoorka ay adeegsato. waxa kale oo ay direen xogta iyo sawirada saraakiil ka tirsan ciidanka Israa'iil sida uu baahiyay wargeyska Israa'iil ee ka soo baxa ee la yiraahdo Jerusalem Post. yahuudi dhexdeeda markaan waa la galay niman laba duuliyaal ah oo markaasi farsamo yaqaanana ah oo diyaaradda F-15 la yiraahdo yahuudu leedahay duuliyaalka ahaa ayaa Iran u basaasayay, sawirana u dirayay, matoorkeeda iyo qaabka u shaqeysana uga sheekeynayay. waa la qabtay, dacwada lagu soo oogay, yahuuda dhexdeeda ayaana kala shakisay, wayna maxkamadeynaysaa. guud ahaan mawduuceena waa naga intaa. saaxiib waa mahadsantahay.